arrintan oo u nimid maanta waxa ay tahay dhibaatooyinkii ka dhacay waddanka Koonfur Afrika oo soo jiitamay ilaa iyo sanadadii ugu dambeeyay oo dhibaatada Soomaalida lagu suuqinayo, lagu dilaayo, lagu dhacaayo, xubnahooda jirka lagu gadanayo, dilka aan macnaha la kaca ahayn intaasoo sano waan soo sabraynay, laakiin hadda macnaha dulqaadkeennii waa uu buuxsamay. waxay noqotay in aan maanta dareenkeena tusno. arrintaasna waxa keenayso in nin Soomaaliya dhulka lagu jiiday, dharkana laga qaawiyay, dhagaxna lagu dilay. gabar Soomaaliyada oo uur leh oo reer ah inta gurigeeda lagu soo jabiyay, haddana ay dhacday in la fuulay oo la xoogay oo ay u dhimatay. rag badan oo xooga dartiis ay u dhimatay gabadha arrintaas ayaa sababtay in aan maanta u soo kacno. waxaan leenahay waddanka Koonfur Afrika waa waddan aan abaal ku leenahay, siiba waagii xornimo doonka waxaan ahayn waddanka keliya oo yiri ma aqoonsanay dowladda gumaysiga ee Koonfur Afrika. waqtigan xaadirkaana waxaan sugaynay macnaha abaalmarin inayna siiyaan. abaalmarinteennuna ma aysan noqonin inay dadkeena dhacaan oo ay xoogaan gabdhaheenna, in dadkeennana ay jidadka ku dilaan oo ku jijiidaan. annagu soo saartay aad meeshan imaatay, maxaa dareemaysaa maanta oo arrintaas ka jirto? Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. arrintan waa laba in la wada marka Soomaaliyeena diglaan baan hayso faar qabiil iyo qabiil baa loo kala baxay. hadda anaga isku dubnaanay waxaan ugu micnay hadda waxaan soo baxnay mudaarada intuu maanay anaga dhan qof ka madamin filan waxa lagu degay 10 kun lagu degay 14 kun lagu degan yahay. yaa had meeshan waxa ujeedaa kun qof xataa mujib qof xataa mujib dilaa maanta Puntland loo banaan baxa ama Jubaland ama xibin xib ama Somaliland ay maal lahayd 14 kun oo 10 kun ay maal lahayd. hadda anaga boqol qof aan Soomaaliya waxa iska waantooba qabiilka iskilo hal mid aan noqono sidaan ugu waantoon waxyaalahan dhan. gaalkan marka yaqaan Afrikaan marka yaqaan Soomaaliya qabiil hebel marka yaqaan waana isku dubnaataan. haddii kal samaan qof kasta meel lagu xirnaa meel lagu ciijin lagu dilaya si dadka soo galay. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. haddii aan lahaan adduunka meel walba aan joogno hal jaalid oo Soomaali ah misleedahay dhibaato noocan dhacayso ma isma hadda anaga aan lahaan hal jaaliyad ama isku dubnaan dadka qurbaha jooga xataa in qabiilka weynaa fiicnaan qabiilkeebo ayaga oo Soomaali dhibaato ka socda ayaga si buubuuna qabiil iyo fadhi ku dir waxa iska bixleen war Ilaahay ka cabsanayo mid ahaado waxa iska dhaaf Soomaali qurba joogto hiritan ay dhaafa Soomaali qurba joogto ugu daran wax qabiileystina Soomaali qurba joogto aniga hadda awood u leeyahay wax qurbaha joog kulli waxaan ilaa waddanka lagu celiyo ayaga fidnada wadaan ayaga lagu celiyo meesha anigana waan kugu raacsanahay sababtoo ah nin qabiiliste ah waxaan u arkaa nin oo hal xaafad maalmeeraysta ninkii oo furfuran qalbi furanne waxa u aqaan nin oo meesho raba tegi karo oo saaxiibo badan leh oo jeeb badan leh. qabiiliste horta wuxuu u dambeynaa shiid u dambeynaa عادي أنا وحنا لو فايزتي أنا وكل قوسنا قد وكل قوسنا عسكر قلب إحنا يا نك حوا قبيل دقح كنا قبيل جري كنا قبيل لوح وعسل سكدا في الصومالية إن شاء الله وهذه هذا وما صدقي مهدي هذا ما صدقي إلهي waxaa u soo baxdeen arrimaha u soo baxdeen maxaa ka mid ah hooyo maanta waxaa u soo baxnay silaca iyo caloolxumada lagu hayo dhalinyarada Soomaaliya oo aan joogto Soomaaliya saas daraaddeed u soo baxday u soo baxnay oo dawladdu waddankaas lahaydna aysan ka hadlin annagana ma taqaanay dad weli awood la aanan ahayn marka caloolxumadaas isaga soo baxnay laakiin
إن شاء الله ضد حبسكر ولا عبسة مرة نقدرنا إن شاء الله إن شاء الله هذا أم صنتهاي وراسك كأب هذا أم صنتهاي الظروف تاع الصومالية دول كده حساء ودبعت أنا قدرنا ننوذ ستا ما دام ويل صومال ده إحنا نقول لي قف كستو ضمير لو صومالي إنه صبح هو مال عن لوكلا بدين كبر من قضاي دليرة مال عن واحد لوكلا سرعة على وضع كاسة كتشلو قضية يوم لا نحوغا يوم لا نبدلا هذا مركز دلين كي يدي صور دعفين دلوقتي داركي كدقان قدمان كصور صور دي مركز دولة ده هدي كتشو وابوز صومالي يوم قبان دارتوه wax kaloo mataqaanaaye oo laga dhihi kara male dowladdeedina kama hadlin oo ma dhihin waxaas waa dhaceen oo mataqaanaaye wax ay ka soo saareen oo go'aana ilaa iyo hadda male macnaheedu waxaa waaye sidaasaa loo dowlad male macnaheedu saas waaye calool xumo base marmarsiyo ma noqonaysa South Africa inay dhahaan dad qof qaawan oo laami la dhigay oo ninka baabuurka wada iska daawana cunka iskoolka ka soo baxa iska daawana ee la leeyahay haddana dawliska ka soo gaari waay oo marmarsiyo caata marka taas ka saari mayso insha Allah wixii taga waa tagay laakiin dadka ku nool waxaan ku codsanaa ilaa ay tala saartaan dawladdan Soomaaliya hadda loo maco dadkaas ay soo daadburay leh wadankaas inay ka soo daadbureen safaaradna kama jirto wajina kama jiro waa inay inta dambe soo bixiso dawladda haday xayaato leedahay intaas bas haday awood ha iska soo inta waarta ha soo bixiso waxaan wax la fiirsan kara ma shar kasta nagula dilaa laakiin tan waa mid la yaab dawladdu way ka dhigaysaa wasiirada waxay tiri arrinta uma degsan karno mana u fiirsan karno balse waxyaalaha waa si kala tartaraayeen annagu diinteen ma qabto qofka bini'aadamka in la qaawiyo inta la isqaawiyo oo mid dambi goobad ay tahay ee tan labaad tahay ala isku dambi u taxataa ee tan afraad haddana ay tahay dhagax la isku dilo diinta ma lagu soo arortay mara waxaan ka qabnaa annaga dhagax qofka lagu dilaayo qof sinaysatay ayadoo naag xalaal soo marsan taas anaga diinteen rabto laakiin qof inta dadka laga qaado sharci la dhigaayo ee dhagax lagu dilaayo ee dawladdan ay ku fiirsayso ciidamada qalabkiisa ay ku fiirsanayaan booliiska amniga ay ku fiirsanayo waxba oo ka qabaneen meelay ku soo aroortay diin muslim dengaal ma jirto arrimaan taas qaadan doonana ma aan qaadan karna ma raali gelin baba laga raali gelin kartaa sideen laga raali gelina ilaa geeri waan naqana laakiin ma naqaano qof la qaawiyay ee dhagax lagu dilay ma waan naqaano insha Allah sayid wa ma siti adigo aad aad u mas'uul Stop you!
كسوها لكن توحنا والله ثم والله يسرقوا عنين أنا كاهن مركان أرقنا نيكا صومالي دقح لقدي ليا سوق يدا يجيدت كسود أفريقيا نحضوضا وحن أقبلي كرنا معها قحوتي أنا هانو دولة لا أنا هانو نظام لا أنا هانو لكن صدوق خبكوها داوع جركي سجاري وداوع قلبي جاري وحن رالي كنا قولي كرنا معها سدح فريم باسدا مدوغوه رسوح وصعطا شعب كصومالي لدي سود أفريقيا دقل وحن كل يهوي إسابة هولا رئيس كدقا رالينا يقا نقضي مركز سيدا إذن الله يهي هدي دولكا نقطو إنا سيدا وقلنا ولاتين وحا إذن كان غير فضل إذن كان وناكسن إن دولكين هو يعردين اللي إذن كدلو إن صومالي وصومالي كانوا إذن دلو إنتو إذن دلي لها وإراه وإريادا طوشحن ننقال مدو نجح إذن كدلي لها maalinka ugu horeysay aan arkay videoga waraaq baan u qoray emailka ninka halkaa ku jiro oo safiirka internetka emailkiisa ka soo qaatay waxay ahayd in maalinkii Nelson Mandela uu u dagaalamayay inuu xoroobo dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaali waxay ahaayeen qolada keliya u istaagtay inay taageerto madowga South Africa degan iyaguna maanta jawaabta ayaan daro wuxuu noqday sida kuwa meesha joogo wuxuu garan kari waayay inuu ii soo jawaabo kristaan ama yeesan akhrisan dilka iyo dhibka ugu wada Soomaalida South Africa waxaan raali ka noqon karno maaha Soomaaligan doonaa aan ahaano dhinacan doonaa aan ka nimaano dhaawac jirkooda soo gaaray waa dhaawac qalbigeena soo gaaray ku socotaa madaxda Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya ugu horeeyo Xasan Sheekh uu ku xigay ra'iisul wasaarihiisa Saaci ee ku xigta Fawziya Ahmed ee wasiirada arrimaha dibadda madax walba Soomaaliya Cabdiraxmaan Karoole ha ahaado Siilaayo ha ahaado inta madaxda Jubbaland sheegatay ha ahaato inta gobol kala duwan madaxtooyo ka sheegatay wallahi thumma wallahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri mas'uul walba maalinka yawm al-qiyaamah baa la soo hor istaajinaya waxaana laga wareysan doonaa mas'uuliyadda uu qaaday ee shacabkii uu mas'uul ka noqday Soomaaliya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sidii sharafta lahayd oo ugu soo qabqasheen dareenkiina aad ku muujiseen hooyooyinka gabdhaha yaryar ilmaha yaryar oo macnaha maanta la siiyay waqtigooda odayaasha dhalinyarada aad iyo aad ayaa idinkugu soo dhawaynaynaa annagoo ku hadlayno magaca midnimada Soomaaliyeed ee waddanka Finland waxaa ogaataa ruux kasta oo maanta xajku lahaa xajadiisa waxa uu ku soo tagay oo keliya munaasabadii macnaha ka dhacday waddanka Koonfur Afrika ilaa hadda bilaabatay waxay ahayd sanadadan in dadka Soomaaliyeed xubnahooda ayagoo nool lagu xisaabtamo oo la yiraahdo ruuxan jidka marayo keliyihiisa iyo wadnihiisaan u bagay isoo bix waxaa jirtay in la dhaco waxaa jirtay maalin dhaweed gabar Soomaaliyeed oo dumara oo la qabo in oo uur leh intii gurigeedii loogu soo tagay odageedii oo shaqo u jira la xoogay ee dad badan oo Soomaali يعني أفريقيا سود أفريقيا وده شيء حوجي ومدود وحين وحلا جوده هذا وقرين عيبة ذاتك كافر أفريقيا انتهي جبدي حوجين بي جبدي وحي ودي مطي رجي حوج درتو مالين ده ويتويل صومالية ودكان كيسة كذرايو ونصور نقد دكان كيسة ولا دعايو إن وحي هرقو كقاطع أيا أنت الله برصدي أيا جد عدرك أنت الله قاوية للدلي وحها شرف هما عنق أرضية أو يونيفورم وطو أو بورصدي سكولك وطو انتو ديكت بورصدي نجح كل فناي وقف أينو قفك الصومالية ديكي سكينتاس لو متيستو داد كان ألا جوغنا معها هدي أن وحير تاريخ دا كوفر أفريقيا ونقضو صوماليا أفريقيا وحيد أفرتن يستغال وطن وحا واجاز صوماليا اي تري استعمار كعد ايه استكوفر افريقيا ما من سنة افرتن يسداد الدولة دوت او وين واعي عبصودين صوماليا او هقامنا يا الله ونحريسته محمد سياد بره ايا وحو يرانيغا ما من سنة سياد بره مالنتو يرانيغا ما من سنة كوفر افريقيا استعمار كان عدانكا وطن كان ما انا اقول سنة وطن كان أما عربها هذا أما عجبها هذا
oo Afrika ka tirsan ma uusan awoodin inuu dhaho wadamada hadda waaweyn oo Nigeria iyo Ethiopia iyo Masar oo waagaas wadamo waaweyn ahay way awoodi waayeen inay dhahaan waddanka ma aqoonsan waxaa dhacday in uu yiri waddan yar oo Soomaaliya oo 10 milyan ka yar oo ah geesiga Africa the Lion of Africa inuu yiraahdo Koonfur Africa waddanka dadka cad oo gumaysiga ma aaminsani maantana injisadayna ay noqoto in dhulka lagu jiido taas ma aamini karno Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha noolaato kadibna waxaa dhacday in uu yiri madaxweynaha Jack Zuma 40 mar ayaan magaalada Muqdisho imid waxaana ka soo doonay hubkii ugu horeeyay oo ay jabhadda ANC ay ku dagaalanto waxaa dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed libaaxyada geeska Afrika markaas ayay ku dagaalameen ayay guul ku gaareen Soomaaliya waxay xornimada doonkii la qaybsatay Namibia waxay la qaybsatay Angola Mozambique Zambia maanta ma aan in ay noogu gudaan in ay dadkeenii sharafta lahaa oo adduunka ugu sharafta fiicnaa arrin aanan aan la iloobi doonin waxaan ka haynaa Nelson Mandela ruuxa cad waan cafinayaa howdhaa laakiin ma hilmaamay annaga uma malaynayno inaan cafi doono hilmaami doonana South Africa waxaa marag ma doontaa in ummaddan Soomaaliyeed oo maanta u soo baxay meel kastoo ha ka yimaadaane u soo baxay qadiyad isku wada mida annaga haddii aan nahay ururka Soomaaliya liito waa idinkaga mahadcelinaynaa in ilaahay khayra idin siiyo waxaan rabaa inaan qaado heesta calanka astaanta Soomaaliya u ah waxaan jeclaan lahaa inay ila qaadaan haddii ilaahay yiraahdo wax ujeedda oo ka leeyahayna ma laha استعمارني لو ديبا لا أدون صدانا Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo Koonfur Afrika waxaan leenahay ma mudnin Koonfur Afrika down Koonfur Afrika down waxaan rajaynaynaa in نزلة ووسع مدخلة وادخله جنة الفردوس ويمكن يد انت إله نحرسته هذه أدى ما سنتجين يعني مظاهرات كانوا يكسوا قبل وقلبي كان هذه مريا صوالح أمامها هذا البلان هاي مبروحية لكن والله وبالله واحد لو قد أرانيا نكستو صوالح فقدتها تجي نكستو ملاحة ما أنت مدحوينها ساوث أفريقيا وهايستو باسبوركي صوماليا مركز دولة سياد بري أي سيدا تاجرس قعدت كويس تامانتا إلى بين كل شيء مدمير بيننا إنه يسوون وهايستو باسبوركي ما كانوا ودك يميل واحد ينحى وأنت واحد ينحى حلو باسبوركي قعدت كويستو ما كانوا وصاق صعوده صوماليا أدب ما سنتين يا الله يقصوا قبلينه ولكن اللهم ارحمه واكرم نزله ووسع مدخله وادخله الجنة الفردوس آمين آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا وعدكم سنتي سيدة صومالي لماذا أدوكو صوبحدين كبارتدي كل عدين تدكو ولدينا صوماليا. وطمت أبوه الرئيسة مع العليم كبير وحانو تعسيين يا ولالكي Soomaalida aanu tacsiinaya Soomaalida kadib waxaan tacsiinaya heeradiya qaraabada oo ka dhigay walaalkeena ilaahay xariiskana dooraayaan leenahay walaalayaal waxa aan ahayn Soomaalinimo oo aan wax ku noqon karnaa ma jirto waxaan rabnaa inaan ku qoos qaadano wixii dhacay waxaan ugu dhacayna waa waxaan annagu ilaahay amarkiisa inta ahayn aan annagu la nimid markii aan qarankeena joognay markii aan mataqaanaa aan qabiil isu qaybinay markii aan dhibaato aan mataqaanaa burbur aan ka shaqeyno oo aan garan weyno inaan dad Soomaaliya oo dal leh oo xaq leh oo xaquuq leh oo dalkooda inay ku garaabaystaan noqon karaan markii aan garan weynay oo aan adduunka oo dhan ku hayaanay waxaan dhaxalnay dhibaatadaas iyo mid iyo qaar kale oo fool xun oo hadda aan meeshaan laga sheegi karin walaalayaal aan hadalka sii badin maayo waxaan leeyahay Soomaaliyeey midnimada hal la ilaaliyo walaalnimada hal la ilaaliyo waxaan wax ku noqon karnaa Soomaaliya wallahi inaan qofna qabiil wax ku noqon karin
waxaan idinka rabaa inaad sida Soomaalinimada aad u soo baxdeen qof walba maanta meesha aad taagan tahay Soomaalinimada ku taagan tahay in midaas aan wada yeeshanaan mataqaana idinka rajeeyaan waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad uga xumahay haddaan nahay shicibka Soomaaliyeed oo madaxweynaheena ugu horeeyo in dalkeena maalin alla keena dhibaato ka taagan tahay aniga 24 sano jira weligeena nabad ma aanan arkin Soomaaliya oo nabadana ma aanan arkin qurbaan intaan ku soo gaaray in wiil Soomaaliyeed asagoo qaawan niman South African ee jidka dhexdiisa ku garaacaan naagaha iyo dadka ilmahana ay u sabciyaan ee wax ka dilaan waa wax loo baahan yahay qof kasto oo Soomaali ah inuu ka gubto oo mas'uuliyad ka saaranta qaasatan ragga Soomaaliyeed ee kuraasta isku haysto ee goboleedka iyo balaayada isku sheegayo waxaan ka codsanayaa ragga Soomaaliyeed hadday Jubbaland tahay hadday Somaliland tahay hadday madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha kulli waxaan idinka codsanayaa adinkoo tixgelinaya dumarka Soomaaliyeed caalamka ku taasan ooyintooda iyo qiiradooda oo naga qabanaya balaayada ay nagu hayaan caalamka dacwaladiisa qaasatan waxaa aad iyo aad uga gudbay aan uga xumaaday gabar uur 9 bilood leh oo gurigeedii inta loogu soo galay ee 3 nin oo South African kubsadeen ayadoo cunugii ugu horreeyay caloosheeda ku jiro madaxweynaha Soomaaliya iyo ragga Soomaaliya waa inay arrintaas ka gubtaan waa inay Soomaalinimo u danqadaan waa inay diiniyaan u danqadaan waxaan u dulqaadan karna male baliis waxaan ka codsanaa ragga Soomaaliyeed ee kuraasta isku haysto ee qurbaha intaas igu soo gaarsiiyey inay arrintaas wax ka qabtaan waxaan ka codsanaa madaxweynaha waddanka South Africa iyo qaasatan ururka dowladaha Afrika oo dhan inay noo gargaaraan haddaan shacabka Soomaaliyeed qaasatan dumarkeena maxaa yeelay raggii Soomaaliyeed aana dayacay ayagaa meel kasta na dhigeen ma qiyaasi kartiin qof dumar ah waddankeedii joogin oo uur 9 bilood oo 3 nin guriga ugu soo dhacday kursi iyo balaayad ka daba hordaysin adinkoo kuraastiina ku fadhiyo oo dowladda oo siyaasadiina isku haysto aad ragga Soomaaliyeed iyo dumarkana aad indhahooda ilinta ka tiri kartiin baliis ragga Soomaaliyeed baliis waa idin baryayaa wax isku tara qaasatan dadka Finland ku nool oo Soomaalida ah oo banaanbaxaan u soo bannaan bixin oo intaas yartaana ko maanta waddankan kumanaan ku degan inaan 100 qof noqono waa wax laga xishoodo Soomaaliya isku xishooda oo waddaninimadiina xataa haddaad Soomaalinimo nacdeen diinta Islaamka mas'uuliyad idinka saaraysa arrintaas inaad wax ka qabatiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qiirada ay dareemaysa ma dareemi waayeen ragga Soomaaliyeed oo madaxda waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya inuu arrintaas si dhaqso ah uga jawaabo wax loo dulqaadan karo maaha dadkayga in dhagax lagu dilo waxaan qaabilayna maaha gabdhaha uur kale oo xaamilooyinka 9 bilood in inta la kufsado haddana la dilo waxaan qaabili karna maaha iyo waxaan qaadan karno waxaan yeeli karnaa waxaan qaadan karna maaha waxaan ka codsanaynaa dawladda inay arrintaas si dhaqso ah uga jawaabto midda kale Soomaalina waxaan ka codsanayaa qabyaaladda inaad iska daysaan waa u jeedaan dadkiinii baa dhagax lagu garaacaya wax noo haray ma lahan maanta waxaan qorraxdan oo 40 u taaganahay waan xamili laanaan waana u dulqaadan laanaa waxa South Africa ka dhacaya South Africana waa dadkii markay qarannimada raadsanayeen oo ay u dagaalamayeen maxay tahay isha qarannimadooda Soomaaliya ay garab istaagtay hubkayagii baan siinay saraakiil sarsara loo diray oo ciidamadooda tababar siisay taariikhda waa la ogyahay waan garab istaagna maanta ay noo baahnaayeen garabka nooga baahnaayeen maantana Soomaaliya qaxootiga inay dhagax ku dilaan oo dumarkii ay kufsadaan oo ay maxay tahay sheeg dadkii dhagax ku dilaan oo ay maatada Soomaaliyeed oo South Africa talasay uga dhaqmayaan wax loo dulqaadan karo ma anta cadiyada ka dhacayna tacadiye caadi ma aha wax loo dulqaadan karo ma aha waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto war hadiina wadankiina ku noqonin dadka waliba South Africa ku nool hadiina wadankiina iyo gurigiina ku noqonin gurigiina baa inii dhaama gurnimada maanta ay ku jirtaan gurigiina baa inii dhaama hadiina gurigiina ku noqonin بليز انت إسابة بشان أو هل ناشين نقطان إسكان عيا أدونت ونشاء جد كي نقول ليسه واحد وقت القانون كرماني واحد حمل كرنا والله واحد حمل كرنا معهن هدينا نقولك إني كنا نقولك إني أني بان Soomaaliya maanta waa nabad والله كده هست هذا كل انت عدانت متى maanta South Africa taagan South Africa mid joogta adoo guriga ku dhinto gaajo ku wala dhinta ku fiican iska celiya dadka intaad hal nation noqotaad intaad qabiil iyo gruubo meel intuu taagan yahay
waxaad ogaataan Soomaaliya inta guruuba meel taagan yahay in dhagaxaas la idinku garaacayo dumarkiina insaa loo kufsanayo inaad saas u bahdilaanaysaan inaad meel kasta Soomaaliya meel kasta aad joogtaan inaad saas u bahdilaanaysaan qorshaha ku darsadana haddiinaan hal dheeshi noqon aad baan inii salaamaya dadka maanta soo baxay weliba waxaan jeclaan lahaa dad intaan ka badan inay soo baxaan aad baan u qiiraysanaa runtii ma hadli karno mana u dulqaadan karno waxa South Africa ka dhacaya South Africa ha dhacdaan leenahay South Africa xushmadan baa naga dhaxaysa ma lahan baanu baahaqayaa madaxda Soomaaliyeed baanu baahaqayaa oraga Soomaaliyeed baanu sida fareen darofteeya dayacnima maanta naga dulqaada calanka baalu gaarantee wuu babaanahayaa madaxweynaheena sharafta lana waan ka toogayaa haddaan Soomaalinahay waan israaci rabnaa alloo darufta dalka tahala iyo dayaca naga saar alloo calankoho babaanahayoon israacnay dul gumaysiga ilaahay hanaga dulqaadayo darxumo waxaan ka codsanahayaa inuu taas wax meel ka qaad bismillaahi raxmaani raxiim Soomaali meel kasta ay joogaan salaam u diraya qaasatan dadka Afrika dadka South Africa ku nool waa u tacsiyeynaya sababta ay tahay waxay joogaan meeshii walaalka ku geeriyooday waa u tacsiyeynaya dadkaas walaalaheena oo Afrika jooga qaasatan annaguna waa u tacsiyeynayna dadka fiilaa ku nool hadana waa u tacsiyeynayna waa ka xunahay wixii naloo dilay qof la dilo noogu horey laakiin wixii naloo dilay baa la'na wiilkaas waxuu qutaystay dowladda sooma sheegin shicibna maaragta ma soo sheegin darrumada iyo siraca loo geysto laamiga loo soo dhigay wax sababa oo ku qutaystay jannada firdaws allah ka waraabi midda kale maanta midkeena noolna wuxuu ku nool yahay uqdad kii naftu ka dhacdana wuxuu ku dhintay uqdad dhibaatadaasna madaxdeennaa leh tabaryara nooma geyn hubyari nooma geyn diin-la'aan nooma geyn laakiin akhlaaq darraa noo geysay in dadkanaga la aqoon waayo dad akhlaaq daran ma nihin laakiin dad mataqaan adduunka magac ku lahana laakiin madaxda ka dhimanna wax kala wata ma taqaanid wax ku kala shaqaysa ma taqaanid hal nin oo danta Soomaaliyeed ka hadlaa male maanta waa fashilan yihiin markay soo istaagaan meelaha midka madaxnimada doonaya waxbuu ballan qaadaa war ilaahay ka cabso annaga asxaanaa noo falin waxaad yeeshaa naftaada maaragta inaa u baqda uroo nimanka madaxda oo Soomaali isku sheega war dhulku waa haraa laakiin dadkii dadkii mid intaan u jeedna waxaa ka daran intaan loo jeedin dadkii ilaahay ha ka cabsadeen madaxda darxumada ayagaa noo geystay qiyaamo ayagaa la weydiinaa ayaga ilaahay baa u jawaabi doono ilaahay ha ka cabsadeen dadkana waxay garabsadeen aan la arag oo meel kasta ku dayacan ha ka hadleen afka hataa cayaar maaha South Africa waxa ay nagu gashay waxay nagu dishay waa dayaca inaan cid la xisaabtamay jirin meel raad ku leenahay male meel kasta joogna sharafta way naga dhacday madaxdeennaana naga rigday war nin kasta daraa loo wadanaa xoolo miya xoolo lacagaa la soo siinaa daraa loo wadanaa anu dadkaagii dadka hadduu dhammaado dhulku waa haraa ciddii rabta ha qaadato laakiin dadkaagii aawe marka ilaahay madaxdu ha ka baqeen dadka naga Soomaaliyeed adduunka nin martiyo edab daranaa u daran annaga waxaana meel kastoo marti ku nahay islama socono marka dadka Soomaali ha israacdo imaa kale allah na geliyo cadowga nagana allah jabsho madaxdanada wax waa fahmi weyne allah wax fahansiiyo balaayay cuneen xalaal allah ugu bedelo baanay nagu dardareena ilaahay run ha ugu bedelo amiin mataqaanay maalkii dadweynaha cuneene maal xalaal iyo shaqo xalaal allah siiyo si warkooda loo aqbalo waxa ay sheegayaan maaragtay wax ruma maahane wax run allah uga dhigo markuu madaxweynuhu khudbayna shibilku waa ogyihiin inuu been daldalaan dadka u khudbayna waa ogyihiin waa qoslayaan marka maxay soo dooneen madaxweynuhu waa qoslaa markuu sheego waa ogyahay waxaad inay been yihiin waa ogyihiin war ilaahay laga cabsado waxaas wax shaqaynaayo ma adduunkana kama jiro waxay sababtay wiilasheenii 20 jirka ahay oo waddanka xukuumada dharka inta laga dhigo nin xun oo madooba oo dhabaha dhigee mataqaan lagu istaago marka waxaan jecelahay inay dowladdeenu ka soo jawaabto
waayo afka nagama sharooteen ilaahay baa ka hadla geliya soomaalina kor allah ka dhigo allah israaciil asalaamu calaykum noolna ilaahay ka badbaadiyo South Africa loo orday muqdisho nin cadaan oo South African wuxuu ku dilay sheegay beejidka qorayad inuu nin Soomaali dilay oo dawladda loo xiray oo kadibna laaluush la dhiibay kadibna la sii daayay marka Soomaali waxa ka codsanaya dawladda inay wax naga qabato ee Soomaalinimo ay u dirto ee dadkeedana ay u soo qaadatay inay kitaab jaamac u soo martay inay badbaadiso wax walba u qabato inay meeltay maanta meesha taagan ay ka bixiso waay maanta xaq nooma nin South African oo cadaan inuu lagu dilo muqdisho oo aeroboort oo ka dhoofo taas xaq ma aha marka waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya haddaysan wakiil naga ahayn ha iskaga tagto kursiga ama ay kala dadkeeda wax u qabato jareerta madowna ha naga qabato dadkeedana ay soo ceshato ha isku duubnaato Soomaali meel walba ay joogto cadaan wala madow اللهم زلزل الكفار في كل مكان اللهم عذب الكفار في كل مكان maanta waxa horta waxa alxamdulillah in saas intay dad yimaadaan safaaradda ay uga hor mudaharaadaan laakiin waxa ka sii daran oo waxa dhibaato noqon doonta insha Allah taala insaan maanta loo mudaharaado oo in waqtigeeni soo khasaarino oo in cadceedda hor istaagno oo beritoole maskaxda laga saaro muslim hadaa tahay hadii aadan qofka walaalka ee muslimka ama Falastiin ha noqdo ama Soomaali ha noqdo ama Bangladesh ha noqdo ama Kurdi ha noqdo ama Jahannam ha noqdo hadii aanad ka deedin wallahi billahi tallahi walaalka ama walaasha usha ku dhacday adigana kugu imaan fiilan baad hurida waxaad isleedahay nabad baad ku hurdaa ma soconayso wala uu iimaanaya wala laga qaadaya maanta waxa la sameeyay waa wax laga xanaaqo wallahi oo halkan ka cambaareen dilkii loo geystay muwaadiniinta Soomaaliyeed aniga waxaan ahay ganacsatada Soomaaliyeed joogtay Cape Town haddana ninkan u jooga safaaradda waxaan maqalnay inuu diiday warqadii waxaan leenahay madaxda Soomaaliyeed in maanta lagu dilo nin Soomaaliya Muqdisho hadii la xiray ninkii South Africaanka ay dilay la soo daayo anan kale markii aan tagno station booliska mundhawaaka la yiri mundhawaaka ninkaan ay ama Soomaaliya ama gurguri markii aan tagnay station booliska sidaas aan dhigay maanta booliska xukuumadda Soomaaliya inta qabatay nin dambiile ah nin Soomaaliya ku dilay dalka Soomaaliya ayay u daysay laaluush waxaan ku cambaaraynaa dawladda Soomaaliya taas cidna kaga gambamayno mid kalena waxa leenahay ambassadorka joogo safaaradda hadii uu diiday hadii kale marwan imaan doona nin muwaadin South African Soomaaliya tan lama hilmaami doono postergeena ku qornaa doonta intii aan u gal abaal haday abaal daradaas noogu bedeleen maanta waxa leenahay mundhawaaka asaga ah ama gurgurina asaga ah maanta kulleetan la arko way mar doontaa tanoo kale mid soo mar doonta ma ahan laakiin waxa looga daran madaxdii Soomaaliya inta qabatay gacantooda gacan ku dhiiglihii soo gelisay dib u sii daysay anan kale station booliska wallahi Australian kib rag jooga garanayo mid kale marka aan tagno station booliska waxa noo dhihi jiray muxuu ka haleeyay anigoo dacwoonaya asaga la weydiin jiray muxuu ka haleeyay ninkaan aniga aan dacwoonay maanta Soomaaliya inta uu qabtay ninka gacan ku dhiiglahay gacanta soo galay aan sii daayay wasayda dhama qoraayo insha Allah assalaamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قبل ساعة ما دام نقول يرتاحي وحن سلام يا دمان دليرة كسوق بكشي هذه يا أمة سنتين ليجيني دعانكيني يا صومال لمدينة قوليها نقص صارتي تبى شغلها تبى عرمك لها يا صوب بحدين أبو صوب بحدين دنيه نقص صارتين المهنة عدد وليبتين هذه يا أمة سنتين كسوق بكشي قف كستو صوماليا وحن كشيء يا ليجينا كعيد عنق صوماليا سلح حلو الدلي ayaad meeshan u soo baxdeen aad u imaateen inaad ku gujisaan dabiirkiina iyo Soomaalinimadina aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin ka soo qayb gasheen waxa hadda aan ku soo dhibeenayaa cunugan yar rabnaa inuu gabagabeeyo howsha cunugan yar ayaa gabagabeeyo Soomaaliga ana ku qabanayo ninka dhalinyarada ciirahaayo bal dhageysta
أبغير تناسبني تاجر وليني Soomaaliya ha noolaato سمايا هنا mع salaamay leeyahay aniga mar labaad waxaan idin leeyahay South Africa, down.